kulan wanaagsan saaxiibayaal halkan waa barta wararka qodobada aad daawad doontaan waxaa kamid ah saraakiil sare oo ka tirsan al-shabaab oo hal goob lagu dilay khilaaf xoogan oo soo kala dhex galay madaxda ugu sareysa maamulka Hirshabelle meedka sarkaal Kenyan ah oo la tuhmayo inay dileen al-shabaab oo la helay qodobadaas iyo kuwa kale ayaa daawad doontaan ee u diyaar garooba saraakiil ka tirsan al-shabaab ayaa lagu dilay hal goob faahfaahin dheeraad ah ayaa ka soo baxaya howlgalo saacadihii la soo dhaafay ciidamada daraawiishta maamulka Jubbaland ay ka sameeyeen duleedka magaalada Kismaayo ee xarunta gobolka Jubbada Hoose howlgalada oo ah kuwa qorsheysan ayaa waxaa laga fuliyay agagaarka deegaanka Cabdalla Biroole oo qiyaastii 55 kiiloomitir dhinaca bari kaga beegan magaalada Kismaayo qiyaar cabdi maxamed oo ah abaanduulaha guutada koowaad ee ciidanka daraawiishta Jubbaland oo la hadlay warbaahinta ayaa sheegay in iska hor imaad dhex maray iyaga iyo al-shabaab lagu dilay ku dhawaad 20 ka tirsan dagaalyahanada al-shabaab sidoo kale waxa uu tilmaamay in howlgaladaasi xubnaha lagu dilay ay ku jiraan madaxii shabaab u qaabilsanaa deegaanada galbeedka Kismaayo iyo madaxii miinooyinka uu magacyadooda ku soo goobay Tasmiir iyo Cadaani waxa uu kale oo xusay abaanduulaha in ay la wareegeen gacan ku haynta tuulooyin dhowr ah oo ka tirsan gobolka Jubbada Hoose ee koonfurta Soomaaliya khilaaf xoogan ayaa soo kala dhex galay madaxda maamulka Hirshabelle warar soo baxaya ayaa sheegaya in khilaaf hor leh oo ka dhashay dhismaha golaha deegaanka Buulaburte uu ka taagan yahay maamulka Hirshabelle sida ay ogaatay barta wararka khilaafkan waxa uu ka dhaxeeyaa wasiirka arrimaha gudaha ee Hirshabelle iyo odayaasha dhaqanka ee degmadaasi waxgaradka Buulaburte ayaa ka hor yimid dhismaha golaha deegaanka waxaana ay shuruud ka dhigeen in marka hore la sameeyo degmooyinka Jowhar iyo Beledweyne dhanka kale wasiirka arrimaha gudaha ee maamulka Hirshabelle Maxamed Cali Caadle oo la hadlay warbaahinta ayaa sheegay in ay qasab tahay in la dhiso golaha deegaanka degmada Buulaburte ee gobolka Hiiraan Shabeellaha Dhexe ayaa waxa golo deegaan sameystay degmada Warsheekh waxaana qasab ah in degmo kamid ah Hiiraan sameysato golo deegaan si kuwa Jowhar loo dhameystiro ayuu yiri wasiirka arrimaha gudaha ee maamulka Hirshabelle Warsheekh ayaa noqotay degmadii ugu horeysay ee yeelata golo deegaan marka laga eego degmooyinka kale ee Hirshabelle meedka sarkaal ka tirsan ciidamada Kenya oo la tuhmayo in ay dileen al-shabaab ayaa la helay deegaan ka tirsan gobolka Lamu ee ku yaala xadka Soomaaliya iyo Kenya ay wadaagaan ayaa laga helay meedka sarkaal ka tirsanaa booliska dalka Kenya oo si arxan daro ah loo dilay sarkaalka meedkiisa la helay ayaa muddo la la'aa halka uu jaan iyo cirib dhigay waxaana ugu dambeyn la helay meedkiisa isaga oo laga jaray qoorta iyo mid kamid ah labadiisa gacmood sarkaal u hadlay booliska dalka Kenya oo lagu magacaabo Hillary ayaa dilka sarkaalkan meedkiisa la helay ku eedeeyay in ay ka dambeeyaan kooxda al-shabaab waxa uu sheegay in sarkaalka la qaatay qorigii uu ku holgalayay waxa uu sheegay sarkaalkan u hadlay booliska dalka Kenya in ay kordheen weerarada gaadmada ah iyo sida qarsoodiga ah loogu dilo gudaha dalkaasi saraakiisha iyo askarta ka tirsan ciidamada Kenya al-shabaab ayaa marar badan weeraro gaadmo ah oo isugu jira qaraxyo iyo kuwa toos ah ka fulisay deegaano hoostaga Lamu waxaana sanadkan kaliya deegaano ku yaala xadka Soomaaliya al-shabaab ku dileen in ka badan 40 xubnood oo ka tirsan ciidamada ammaanka dalka Kenya guud ahaan saaxiibayaal wanaag inta warkii aad kala socoteen barta wararka intaan warkan warka xigaan kulmi doono waxaan idinka tageynaa